munaasabaddan oo ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa ujeedadoodu ahayd mid lagu xuseeyay xuska maalinta ciribtirka miinada iyo wacyigelinta aafada waxyaabaha qarxa waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland mudane Ciise Axmed Yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga agaasimaha waaxda miinasaarka qaranka ee wasaaradda gaashaandhigga shaqaalaweynaha waaxdaasi iyo hay'adaha la shaqeeya intay socotay munaasabaddan ayaa lagu soo bandhigay waxqabadka waaxda miinasaarka qaranka ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland muddada ay jirtay waxaana laga warramay qaababka kala duwan ay u howlgalaan shaqaalaha ka shaqeeya waaxdaasi iyadoo la sheegay in gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland intii ay ka shaqeynaysay waaxdaasi laga sifiyay minooyinkii lagu aasay waxaana sheegay in waqti xadarkan ay howlgal ay ka wado waaxdaasi gobolka Saaxil agaasimaha waaxda miinasaarka qaranka ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Aadan Axmed Mooge Kennedy ayaa ka hadlay xuska maalinta ciribtirka miinada iyo doorka kaga aadan waaxdaasi bandhiga hortaada hawshii waaxda miinasaarku ee wasaaradda gaashaandhiggu ay qaranka u haysay aqoonteedii aanu leenahay khibradeedii aanu leenahay way aragnimadeedii aanu leenahay waxaan halkaa kama abaalka dhacayna aan hortaada uga mahadnaqaya hay'adii Hallow Trust ee gacanta lagu soo haysay muddada inta leeg wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland mudane Ciise Axmed Yuusuf ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ku faanayso shaqaalaha waaxda miinasaarka qaranka isagoo oo sheegay in ay yihiin kuwa naftood horayaal ah ka qaran ahaan maanta waxa halka noo jooga oo sidii rag hore ka dhawaajiyeen teamkan shacni wanaagu ka muuqdo oo ah team dabooli kara baahida qarankan u baahan yahay hadii meel wax lagu sheego qaran ahaan bishaaro waxay noo ah inaynu isku filaansho ka taaganahay maanta daraf kasta oo dalkeena ka mid ah meeshii wax lagu sheego inaynu si degdeg ah sariic u gaari karo waxna uga qaban karo waxaan u mahad celinayaa teamkan sharafta leh mutadawiciinta oo naftoodayaasha inay dadkeen naftooda u khatar u geliyaan inay u badbaadiyaan dadkooda iyo dalkooda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxa uu fariin u diray bulshada ku nool Soomaaliland inay ka feejignaadaan miinooyinka ay soo saarayaan daadadku xilli roobaadii lagu jiro daadad baa dhaca waxba ay soo qufaan waxaas ma dhulka kaga abaaday laga digtoonaado oo khaasatan dadka badanaa reer miyiga ay ka taxadaraan in ay khaasatan iyo caruuruba inay qaataan waxyaalaha aanay garanayn ama bir ha ahaadeen ama naxaas oo ahaadeen Cabduqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.